السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا ورركي عيارة بولشة سبورتس تيفي قضبضا ايدين كيغا هاي وحاكمي برشلونة ayaa suuqa dhigtay Coutinho iyo Griezmann. Umtiti ayaa ku dhow inuu ku biiro kooxda Lyon. Chelsea ayaa u dhaqaaqday mar kale Lewandowski. Brighton ayaa xiiseynaysa Brett White. Inter ayaa doonaysa xidigaha Bellerin iyo Telles. intaas waxa ay qodobadii wararka ciyaaraha hadna ku soo dhawaad isagoo faahfaahsan. Barcelona ayaa suuqa dhigtay Coutinho iyo Griezmann. Faafahinta warkan waxa ay noo Muno Cismaan Cali. kooxda Barcelona ayaa si aad ah u doonaysa inay hesho kooxaha iibsada xidigaha kala Philippe Coutinho, Antoine Griezmann. wargeyska Mark ayaa sheegay inay hadda u muuqanaysa inay jiraan kooxo doonayaan saxiixyada Coutinho iyo Griezmann. kaliya maamulka Barcelona ayaa sugi doona iibka Griezmann iyo Coutinho, sidaa darteed waxaa la filayaa inay mushaarkooda hoos u dhigi doonaan xidigahan. Antoine Griezmann ayaa 2 sano ka hor ayaa Barcelona kusoo qaadatay adduun dhan 120 milyan oo euro markii uu kasoo dhaqaaqay Atletico Madrid heshiis 5 sano ah, balse hadda laacibkan Griezmann waxaa laga heli karaa 72 milyan oo euro. Philippe Coutinho ayaa asna 2 sano uga harsan qandaraaskiisa Barcelona iyadoo lacag dhan 44 milyan oo euro ayaa asna la filayaa inuu kooxda kaga tago xagaagan. Barcelona ayaa diyaar u ah inay khasaare ka soo gaarto iibka xidigaha kale ah Philippe Coutinho iyo Antoine Griezmann. Umtiti ayaa ku dhow inuu ku biiro kooxda Lyon. Faafahinta warkan waxa ay noo haye Xasan Cumar Xuseen. kooxda Lyon ayaa doonaysa inay dhamaystirto heshiiska difaaca kooxda Barcelona ee Samuel Eto'o sida ay qortay Sports. kooxda reer France ayaa doonaysa inay dib ula soo saxiixato 27 jirkan xagaagan, waxayna rajeynayaan in ay Barcelona ay aqbali doonto 50% mushaara maadaama ay maamulka kooxda Lyon ay ku doonayaan xidigan qaab amaaha. waxaana laga yaabaa inay Barcelona hor istaagto bixitaanka Samuel Umtiti. Lyon ayaa sii wadi doonta baacsigeeda difaaca Barcelona ee Samuel Umtiti xilli ciyaareedkan. Chelsea ayaa mar kale u dhaqaaqday Lewandowski. xidiga reer Poland ayaa mudnaanta koowaad ee kooxda Chelsea kadib markii lagu guul dareystay hamigoodii Haaland. kooxda Chelsea ayaa isku diyaarinaysa inay dalab ka gudbiso Robert Lewandowski xagaagan si uu u macsalaameeyo kooxdiisa Bayern Munich, sida ay qortay The Sun. Robert Lewandowski ayaa xilligan ah bartilmaameedka ugu sareeya ee maamulaha Chelsea ee Thomas Tuchel. kooxda Borussia Dortmund ayaa isbuucan kor istaagtay Erling Haaland inuu ku biiro Chelsea oo u soo bandhigtay adduun dhan 150 milyan, balse hadda waxay rajeynayaan inay dalab ku kacayo 50 milyan oo euro ay kula soo wareegaan 32 jirkan kooxda Bayern Munich ee Robert Lewandowski. Brighton ayaa xiiseynaysa Brett White. Faafahinta warkan waxa ay noo Muno Cismaan Cali. laacibka kooxda Barcelona ee Martin Braithwaite ayaa dalab ka soo gaaray kooxda Brighton, sida laga soo xigtay Sport. kooxda Brighton ayaa qorsheynaysa inay adeegsato qiimaha 50 milyan oo ay kooxda Arsenal ka rajeynayaan si ay u lumiyaan xidigooda Ben White. Ben White ayaa ku sii dhawaanaya inuu ka degto garoonka Emirates Stadium, laakiin Barcelona ayaa dalban doonta ku dhawaad 13 milyan si ay u fasaxaan Martin Braithwaite oo sidoo kale la xiriirinaya kooxaha West Ham iyo Wolves xilli ciyaareedkan. Inter ayaa doonaysa xidigaha Bellerin iyo Telles. Faafahinta warkan waxa ay noo haye Xuseen Cumar Xuseen. agaasimaha guud ee kooxda Inter Pepe Marotta ayaa ka hadlay xiisaha ay kooxdu u qabto saxiixyada kale ah Hector Bellerin ee ka tirsan Arsenal iyo Alex Telles oo isna u ciyaaray Manchester United. Inter Milan ayaa suuqa ugu jirta xoojinta difaaca xilli ciyaareedka cusub kadib markii uu kooxda ka faaruqay Hakimi oo ku biiray dhawaan Paris Saint-Germain. Marotta ayaa xilligan shaaca ka qaaday in Bellerin uu yahay bedelka suurtagal ah halka Telles uu sidoo kale yahay dooqa xiga. intaas ayaa ku soo gabagabeynayna wararkii ciyaaraha Bulsho Sports TV. waa anigoo ah Qamar Maxamed Cumar. sidaas iyo nabadgelyo.